uu dalban doono laba wuxuu noo sheegay heshiiskii 17 Sebtembar ee doorashada dalban ee lagu jideeyay inuu fashilmay oo wax heshiis oo jira aysan jirin iyo qodobka saddexaad oo in uu sameyn doono muddo kordhin madaxweynaha iyo baarlamaanka loo sameeyay wuxuu kaloo ku sii daray eray handadaadaha oo uu yiri cid uu joojinayo ama lagala tashanayana ma jirto intaas kadib markii ay dhacday shirkii guddiga annagu aan jirnay iyo gudoomiye mursal oo soo itlaaday waxaan iskugu nimid xarunta golaha shacabka dood ayaan ugu dhex martay gudoomiye mursal dood annaguna waxay ku qotantay laba qodob oo ahaa kan koowaad kooramka golaha shacabka inuusan dhammayn shirku inuusan furmi karin sidaad la socoteen qodob dastuuri ayaa tilmaamaya kooramka boqolkiiba konton lagu daray hal inay joogaan marka shirka ajandiisa la gudagalayo furmi qodobka saddexaadna wuxuu ahaa ajandaha la keenay inuusan waafaqsanayn qodobka xeeroosaadka ee 25aad qasabna ay ahayd in la soo mariyo guddiga joogtada sidaas daraaddeed maadaama procedureka lagu soo gudbiyo ajandahan oo khilaafsan yahay xeeroosaadka in dib loola laabto oo gudoomiye uu soo soco oo guddiga joogtada laga soo aqbalgalayo sidaasna kulanka baarlamaanka lagu horkeeno meeshii buuq ayaa ka dhashay buuqii kadibna wuxuu kalifay in shirki la soo xiro intaas kadib xalay maray tahay 10kii iyo barkii habeennimo magaalada Muqdisho ayaa waraaq wifta soo qoray gudoomiyaha oo leeyahay 15 xildhibaan oo mudanayaasha golaha shacabka kamid ah ma imaan karaan mudashan kulamada golaha shacabka go'aanka mursal oo ku sheegay in xildhibaanadana ugu joojiyo kulamada golaha shacabka marka koowaad horta ma jirto wax sharci ah oo u cuskan labo ma jirto sharci ama xeer fasaxaya in gudoomiyuhu soo saaro go'aan noocan oo kale saddex wuxuu meel uga dhacay xeeroosaadka golaha shacabka gudoomiye awoodda keliya ee gudoomiyuhu uu leeyahay xilliyada fadhiyada waa midda ku cad qodobka 16aad faqradiisa 6aad xeeroosaadka golaha shacabka ee si cad u qeexay haddii ay jirto fawdo ama nidaam darro gudoomiyuhu wuxuu xiri karaa fadhiyada wuxuuna ajandaha maalintaas dib ugu dhigi karaa kulanka xiga sidaas ayuu sharcigu u qoray sidoo kale mursal wuxuu ku xadgudbay qodobka 25aad ee xeeroosaadka golaha shacabka ee xadaynaya ajandaha fadhiyada golaha shacabka guddiga joogtada ayaa diyaariya ajandaha fadhiyada golaha ajandahana waxaa loo qaybiyaa xildhibaanada ugu yaraan 24 saac ka hor fadhiga loo dheeyay sidoo kale gudoomiye mursal wuxuu ku tuntay qodobka 14aad ee si cad u qeexaya inuu mas'uul ka yahay fulinta iyo dhowrista xeeroosaadka iyo ilaalinta nidaamka golaha sidoo kale gudoomiye mursal wuxuu ku tuntay qodobka 4aad faqradiisa 2aad ee xeeroosaadka ee ka mamnuucay in dhismaha golaha lala soo galo isagoo maleeshiya darcada ku soo daabulay xarunta golaha oo idahana ay taagnaayeen korna ay saarnaayeen gudaha howlka shirarkan ay ku jireen ciidamadaas darcadka ahaa ayaan waxaan rabnaa tafaasiishooda inaan inta ku bixino wixii ay ahaayeen ciidamadaas waxaa watay nin la yidhaahdo shakiib oo shabaab hore u ahaan jira isagoo dhaawac ah oo dagaalamaya ayaa laga soo qabtay suuqa bakaaraha waxaana lagu xiray xabsiga dhexe kadibna waxaa loo sii gudbiyey sarandi oo lagu xiro dadka dambiilayaasha ee iska soo dhiiba shabaab ama ayagoo dagaalamaya la qabto halkaas ayaa laga soo saaray kadibna waxaa loo qaatay inuu ka mid noqdo ciidamadan oo sugid wuxuu shabaab u qaabilsanaan jiray dilalka qorshaysan ee dadka mas-uuliyiinta lagu laaqay wuxuu si toosa ugu xiran yahay taliyaha nabad sugidda Fahd Yaasiin wuxuuna u qaabilsan yahay howlgallada khaaska ninkan waa markii labaad oo asaga iyo ciidamada oo wato xarunta golaha shacabka la keenay sidoo kale ciidamada uu wato waxaa ka mid ahaa sida naloo sheegay kuwa shabaab ka yimid oo sarandi ku xaraysnaa oo dhammaadkii bishii Febraayo laga soo saaray bastuuradana loo qaybiyey ujeedadooduna ay ahayd inay ka howlgalaan banaanbixii 26 February lagu qabanayo darjirka daasoon ee midowga murashaxiinta mucaaradku ay qabanayeen qaar ka mid ah ciidamadaas shalay la keenay xarunta baarlamaanka waxay wateen qoryaha meelaha fogfog wax ka dila ee loo yaqaano sniper gun go'aankana shirka Brit fariinta golaha shacabka maanta loo diray waana soo gaartay waana tagaynaa shirka Brit insha Allah warqadda sharci darada ee magacyadeena lagu qoray ee mursal askarta ugu dhiibay dhiigeennana lagu badnaysanayay wixii lagu soo gaara mas'uuliyaddeeda si shakhsi ah waxaa u qaadaya gudoomiye maxamed
mursal waxaan leenahay shuruucda dalka wax jeebkaaga geli kara waa ka weyn tahay ee dastuurka iyo xiraasaadka golaha shacabka mudana u hoggaansan waa mahadsantihiin. بسم الله الحمد لله خلافها لما سبحانه وتعالى أنا وحن فيرنا كريه طلب كسر جار كاو كان كنسون بدل الحجرة دور الشهر كان يتقبسون من سكاسة سكورتي أمنية سيدا أبتي مدام كان كان عايز سجال يكون فبراير هبين كي يمارس بحيث تدرس عتينا هبين كي من الرياش شرب يبدون ربع معك لويري الصباح هنا عندنا مظاهرات إنه برايم مستر كورونا هو هاي المرشحين كله اللي معنا نصوري سيدا كان لحي لو أتيت كبراء قرشي وصل فرماج من كبار بملاحظة الويرين أنت هذه الأسود بدو واحد أبتي من دول ملاحظة أحمد يمين محمد عبد الله فرماج وعسكر بي إنه لبعض ملاحظين يقصوا بلا رباط اقتصاد فربنا أو حاجة أمني ولا أو قسمية إلا عسكر بي محرم على رباطك تاسو الدنيا السور جيست إن مدة أنتو ضخم هناك عن محمد عبد الله فرماج بوليسك ملتريكا نبت سويدة وحقوق معمولة شقال أو ليه بوليسك شقي عمل ضرب كان مكتوب بالجود أو عمد الصومالية وقت هاي قدوه فترة حتى إن أمني السياسة الكبشية والوقت ده إقالة دونته تنقول ده هذا وحياة شريك برلمانك وفرح سنة إنه حلبان كورشيري حال السوق اللي نبت سويت برعلة وربنا كود كيل الشعب أو سيجارة قرشوين وفولية يعني تذكر يكون دلنا مجال أنا وقوة رجحت الجريء لما أنا شغالة وصي شغالة يقول شغال كلام شكيل أنا كسوق هذانا وأنا اللي يغان أو الشباب أو تطبق أو الصومالي السوري وأنا اللي أوجي هاي أنتوا كلها عمود بريشني أو الشباب تحسبيني أو ضد الصومالي أو كل بعتيني إن جبت الرأس هذا الوسط جابي رامع أو مركو صول عطيه مالا مرسية 6 سنة وتسود أنت اللي هو بي أوبريشن جارو غطاء حياة اللي قلت له حكمي ذا إنه حلوانا شرك كل حد البرلمان تحوله أو كل شيء حتى على جزر الدوران مركا مدحوين وقت سبحان الله عبد الله فرماجو وحو قصة لما هذه إنه قدوميها برلمان كو أليسلو حبي أو السيل استعمال جرؤها دولة إنه خلق الجديد محمد عبد الله فرماجو وحنا رابطة الصومالي نحو الشيبة وحب أنصدي دولة الصومالي لو قد بليو وحب أنصدي لو الصفر والجوع عليه وحب أنصدي إن قف من آدم إسكتم بين مدحنا أونلاين dadka ka hooseeya oo kamid ah kaliya Sweden kaliya military kaliya police ka waxay ahayd inay qaataan qorshe ka duwan kiisa laakiin aad iyo aad aan waxuma qorshe kula jira waan kala shaqeynayaa maalin aan maxkamada la soo taagi doona hadii la helo aad iyo aad u xasantiin ما سنتين كنت وزير معدي بين مصطفى الشيري في شهر ماشي كان عايز كليه وحنا رأينا كتر الجيو بدون محمد صلوا اللي بعده وكسر قرية وقدر وكشري هنا يبقى رمح شهر مستعجل واحد اللي بعده دي مركز فرنسا دي بيها على جرتي محمد اللي ديري شوف المدي هي عيان مع عبد الله فرماجو ده عيلي ورا عدو وانا بلاي هي فرنسا دي بيها كنص جراني كاسمات شو ديبي وأرن أرد وأروح مع ضرنتي قدوميها وحمديه كرا سب لبوكة تجري أي ورد فرع وصار قناة تاس وتاس وحرب هنا حد يوم إنك كسر بوستي الشباب حتى كتستن عيد مدى النساء شكيب أنا جا مركي يقول رئيسنا كوحي هاي كونكي رئيس الوزراء محمد حسين رابع أنتو سن إيمانين أيام مالين أسبوع رقمي برا بعد ما كمان لقى سوق بحين جري إذا ما كنا قدم إذا ما رسوله بأمين هاي رنتي وحرا يعني شيء كيسمي هذا الله أضاك أيوة يقولي مركا أنا مركا سبحانه بيستيقن وياي من ورياء ما أنا ملين من وياي أوصل شرعا مركا عندش تجي حرا يعني شيء كيسمي أسرع يدور فأسرع وديسة هذا ما يري يرو عند 18 years 17 تستانوا وأنا نقولين وحياين وحياة ويقول وحكم إذا فمانت عن هل كان سوء استارينا عدايو أفكي سنة ويجي اللي بعنا معارض كوحنا بناه هنا سيدي نكى اسطنبول جري السعودية كجمال باشوكشي هو كلا هنا جرجرنا
ayaa naga go-on marka laba jeeruna meesha ninkaas labada jeerna howl collaboration oo afduuba ayaa baarlamaanka ka socotay runtii nin sarkaal nabad sugid ah sheeganaya ee qaranka u shaqeynaya inuu yidhaahdo xildhibaano federaal oo shaqadooda iyo waajibaadkooda gudanaya inuu yidhaahdo waa inaan idiin jarjarno ayaa naga go-an hadee waa dareemi kartaa xaaladaas inaysan xaalad sahlan ahayn dabcan meesha laga soo diray iyo cidda xukunta ayaa waxaas go-aanka asaga iyagaa la qabo go-aan asaga keligiisu ka soo fikiray ma aha dalkaanu marka wuxuu ku jiraa qalqal amni qalqal siyaasadeed baarlamaanka raggan meesha jooga ama xildhibaanada halkan jooga oo gudoomiyaha baarlamaanka warqadda sharci darrada kaga soo qoray waxaa ka mid ah haddee wixii uu la dhuumanayo inqura waa beri inuu sameeyo dadka soomaaliyeedna taasaan u sheegaynaa baarlamaanka inuu afduuban yahay waxa meesha ka jira ay tahay wax sharci darraa maxamed musalna waayahan ugu dambeeyo o dhan uusan ka shaqaynayn wax sharci ah marka taasun baa loo socdaa taasaan rabnaa inaan idiin caddeyno taasaan rabnaa bulshada soomaaliyeed inaan u caddeyno in aada looga foojignaado arrinkaas shabaabkii iyo dowladdii ciidamadii amniga qaranka aad ayaa la isugu milmay waa la kala garan lahayaa runtii marka khatartaas ayaa jirta aad iyo aad aad umahadsantiin بسم الله الرحمن الرحيم وسلامتي صحافة سلام كدب وحن سكن قرينيا أما أن قرأ سنة دمان هذا الذي يشجع صاحبه يجوري أنت كدب وحن ربع بين بشر الصومالية ما حد عليهم كنت وحن يسوع جاري بشر قيبه ذاك الدول الرماد وناكسن وبقادين هي ما حد نفع إن الشري بوليس تاجني ودكتورسي مع الصناعين محمد عبد الله فرماجي من الفيديو هذا ونو أديري وجميع سلوك استعمالي محمد عبد الله مرسل وأنا صنت بشر الصوماليات وأنا مسج كود يدير قلت وده نوان بدوني وأنا سيود دون حوش يعني حتى الله عود اللي كره النهر طبعا وحي دعي ولا شيء لكن هو وحير أنا قدر قلت أنا كمية بدوني مرسل اشتري مركي عن حركني وحنا ماشي كدعية وضبدي وشيء خدمان مهد صلاة هي إن الأحمر لكن وحيبان عتيب كلها سوء ودي ذنا اللي يدو استعماله وحكمتها على وضع طفل يا شيء سنة أسكرت أنا ضربضي كل ولا سمينا ما أنت لا سمينا إنه وحن كينا يلا بكم العيدة عنده وجه بسنة يلا ما أعرف يعني شنو متعلق بري مكان كنت وعجيب رقمدي سما كان في يدني سيدا حانو وشيغد نينك oday hore aan nabiyeen waxaan nahay xildhibaanadii hadda kor